bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag oo kamid ah meelaha ay sida xoogan uga socoto dhismaha wadada isku xidhaysa gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa si weyn u taageeray habka ay xukuumadda u hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u dhaqaajisay dhismaha wadadaasi iyagoo sidoo kalena bulshada reer Garadag mahad celin bogaadin iyo hambalyoba hawada u mariyay maamulka wasaaradda horumarinta wadooyinka iyo jidadka Somaliland maareeya ku-xigeenka wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo dhammaan shaqaalaha wadadaasi sida ay u dardargeliyeen dhismaha wadadaasi oo iminka gebageba ku dhow waxaana bulshada kala duwan ee reer Garadag oo iskugu jira mas'uuliyiin iyo shacabka degmadaasi oo soo dhaweynaya habka loo wado dhismaha wadadaasi kamid ah hadaladoodii siiba madaxweynaha Muuse Biixi waxaan kale oo aan halkan uga hambalyeynaya wadadii oo xawli u soconaysa labada wasaaradood wakaaladda wadooyinka maareeyaha guud iyo maareeyaha ku-xigeenka ina qalab iyo wasiirka aad iyo aad baan u hambalyeynaa dalnahay bulshada reer Garadag si xawliya ayay u soconaysaa wadadii waqtiyadan ugu dambeeyay usbuucyadan waliba aad iyo aad ugu dambeeyay xawligeedii ilaa laamigii midooba wuxuu soo socdaa fadhigaab hadeer waa ku soo dhaafay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqaalaha wakaaladda ee ka shaqaynaya waxaan leeyahay dadka ka shaqaynaya waad helaysaan jasaayigiina xagaalena waa ka helaysaan qofkii wadda qoryar ka qaadaa nebigu sallallahu alayhi wasallam waa kii sheegay ajar buu leeyahay marka waxaan u sheegayaa bulshada Somaliland wadada aad iyo aad ha u hambaliyeyso ha ugu kacdo hariya habeen anagu waan hadalnaa shacabka reer Garadag waliba anigoo ah isuduwaha dibadejinta degmada Garadag oo xukuumiya aad iyo aad baan u hambaliyeynayaa aad iyo aad hariya odayaasha reer Garadag ee jooga Garadag hadaan warbixin ka siino dadweynaha ama Somaliland si wacan bay u soconaysaa wadada hadeer oo xawliya shaqaaluhuna si fiican buu u shaqaynayaa waxaanu leenahay waliba sida ay si ka sii wanaagsan ha loogu dhaqsado sababtu waxa weeyaan wadada tani waxay wadada rafaad badan oo taariikhda Somaliland qayb badan ka qaadanaysa qayb badan sameynteedu waxaanu leenahay ku dadaala haday aatiin dawladda Somaliland waana soconaysaa waana wacan tahay in la isgaarsiiyo inta ka hadhay baanu doonaynaa oo xawlina loogu sameeyo haddii aan nahay dawladda gaadiidka waaweyn waxaan leenahay wadadu si fiican bay u socotaa insha Allah tacaala marka shaqadaas aad iyo aad u socotaa si xawliya haddana saa loo sii wadaan leenahay marka shaqadu inay si dardar loo socoto oo aanu halkan saaka kala hadlayno cid kasta oo ay qusayso shaqada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland marka waxaan leenahay shaqadu ha socoto wixii dhiman la dhameystiro waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso wadada isku xidha jidka halbowlaha ah in laga qayb qaato oo wixii dhiman la dhameystiro aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa telefishinka Ariel ee saakana soo booqday wadadan waxaan naga weydiinaya haddii aan nahay qolada gaadiidka waaweyn ee wadadan mar kasta martay waaweyn alxamdulillaah rabbil caalamiin markii hore waxa loo socon jiray maalmo iyo habeen fara badan oo aad loogu soo dhixi jiray laakiin xalay barbaran ka soo baxnay saaka Garadag baan sugannahay marka inta dhiman ee caratuulkiyo waxa yaalana hal isku xidhaan lana dhameystiro xalay tobanka habeeno waan sawirka ka dalbaday ayaa ka dalbaday barbara tobanka habeeno ku soo dhacay saakana shantii subaxna weela taagnaa anigoo ceerigaabna inta ku jiro aad garanayso wallahi saakana lixii subaxna weela taagnaa xalay tobanka habeeno barbara marka waa ilaahay mahadid waad garanaysaa waagi hore dee masaafada u dhaxaysay iyo dhibta naga haysatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay idinka jisaysiiyo waxa weeyaan khayrka wanaagsan aan noo qabateen annana oo idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay daajar yaa walba idinku haynaa wallahi dhalinyarada degmada Garadag haddii aanu ka warbixino xawliga wadada sida ay u socoto annaga injineerka qaybteeda haysta wuxuu dhisayaa oo samaynayaa laamiyada caalamka si wacan oo maxay ahayd xawli iyo karti iyo aqoon ay ku jirto iyo ay u socotaa haddii eebidinkeeda waxaan leenahay caalamka kale ama Somaliland kale wadooyinka socdaana ha ku daydeen injineerkan sida uu wado wadaduna inay sida u socoto ayay muhiim u tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin maxamed gumburi muuqbaayaha caalamiga ee Bulshada TV degmada Garadag.